السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أرديدا كسو دوادا درسي أفراد براشديني أدوب فوتوشوب. درسي أفراد waxaan ku bilaabaynaa barashada tooliska ay Photoshop leedahay. maadaama aan doonayno inaan tooliska baranno waxaa khasab inaan ku ah inaynu asaasiyaadka tooliska ka bilowno. asaasiyaad markaan ku leeyahay waa shayga ka toolka marka ugu horeysa aad u baahan tahay inaad ka bilowdo, kaasoo inta badan uu adeegsado qofka Photoshop program ku diyaarinaya ama wax ku edit gareynaya. toolka aynu ku bilaabayno waxaa lagu magacaabaa Move Tool. wuxuuna ku yaalaa tooliska line-kan tooliska ah halka ugu sareysa. waa tool kale calaamadaas afarta gees ah. markii aad qabato right left click aad xogaa hayso wuxuu bixin doonaa calaamadaas oo muujinaysa inuu toolkan yahay dhaqaajiye, shayga intuu halka ka dhaqaajiya meel kale geyn kara. okay, taas waa calaamadda ina siinayso ama ma garanaysa thumbnail-ka ina siinayso Photoshop si loo fahansiiyo toolkan wuxuu qabto. marka haddii aan left click cabar hayo waxaa soo baxaya laba tool waxaa lagu magacaabaa Move Tool. waa toolka aan doonayna inaan adeegsano caawa practicalna aan ku sameyno. toolka kalena waxaa lagu magacaabaa Artboard Tool. waxaan adeegsanaynaa kolka aan baranayna casharada horumarsan. maxaa yeelay waa toolka keli ah oo inta badan ka qayb qaata markaad sameynayso digital design. waxaan adeegsanaynaa marka Move Tool si aan u ogaano Move Tool shaqooyinka uu qaban karo. halkan markaynu joogno waxaan rabnaa inaan halkan shay keenno si shaygaas aan u dhaqaajino. tusaale shaygaas wuxuu noqon karaa shape. maadaama shape aan u baahno inaan halkan keenno, shape-ka isagu ma sameeyo ee wuu qaadaa kolba meel ayuu geeyaa, waxbuu ka bedelaa. marka aan shape keenno aynu adeegsano toolka inoo sameynaya shape-ka ee lagu magacaabo rectangle. waxaan tegaynaa rectangle, kadib waxaan leenahay toolka ugu sareeya ee rectangle tool ayaa waxaan leenahay click. maadaama aan click siinay halkan waxaan ka bedelaynaa colorka marka aan rabno inaan adeegsano ayaynu ka bedeli doonaa. tusaale colorka blue ah baynu qaadanaynaa. kadib waxaan sameynaynaa halkan ayaa waxaan ku soo dhijinaynaa saanta ugu qabano left click inagoo hayna ayaan saa ugu jiidaynaa. waan sii deynaynaa. waxaa laynoo sameeyay shape. balse falaarta ee magaranaysa cursor-ka mouse-ka weli wuxuu ku programsan yahay hayaa sawiridii shape-ka. tusaale haddaan meel kale anoo left click hayo ku jiido wuxuu sameynayaa mid kale. shaqada uu qabanayo rectangle tool ayaa intaas ah. haddaba inaan dhaqaajinaan rabnaa. haddaynu kan ku qabanno left click oon dabcan inaan dhaqaajino inagoo rectangle joogna ma awoodno oo waxaan sameynaynaa shape kale oo cusub. marka haddii aan u baahno inaan dhaqaajino, shaqada dhaqaajintaas waxaa iska leh Move Tool ayaan aadaynaa. marka Move Tool baan tagaynaa, click baan siinaynaa. kadib shape-kan waynu left click inagoo hayna ayaynu qaadaynaa meeshaan rabnaa u jiidaynaa. haddaan rabna kii kale ayaan hoos ka marinaynaa, halkan ayaan keenaynaa. haddaan rabno inaan dheeraysano xagga u dheeraysiinana markaan falaarta dulgeeyo u fiirso. falaarta markaan halkan joogo oo sawirka ninkan xabadkiisa aan joogo, falaartaydu waxay leedahay qaybtii mouse-ka iyo qayb ka dambayso afar gees oo afar maarta isku tallaab afar gees leh. laakiin markaan shape-ka dushiisa tago waxay bixinaysaa calaamado mid qalloocda oo maarta gees u qalloocda, iyo markaan ku dhaweeyana waxay noqonaysaa mid laba gees leh. midda labada gees leh waxay sheegaysaa shaygan inaad yareyn karto iyo inaad weyneyn karto. tusaale haddaan qabto left click saasaan u jiidayaa. left click-aan hayaa, haddaynin left click-aan hayaa. haddaan gudaha u celiyana waan sii yareynayaa. haddaan dhinaca bidixda u kaxeeyo, haddaan midigta u kaxeeyo oo anuu left click hayana saas ayay ku soconaysaa.
oo shape-kii wuxuu noqonayaa shape weyn. awooddaas waxaa iska leh marka move tool ayaa iska leh, tool kale oo leh ma jiro. haye markaan saa yeelay oo move tool oo shaqada maaragtay dhaqaajinta inoo qabtay rectangle oo sawirka inoo sameeyay oo shape-ka inoo sawiray, waxaynu rabnaa marka move tool muxuu kale inoo qaban karaa. move tool muxuu inoo qaban karaa iyo kale wuxuu inoo qaban karaa oo fiirso shape-kan afartiisa gees dhexda kor iyo hoos calaamado ayaa ka muuqda cadcad. dhexdana waxaa ku jira afar kuud oo yar xidgado yaryar ayaa gudaha ka muuqda. xidigahaas mid ka mid a markaan falaarta saaro, falaartida calaamad qalloocda ayaa gadaal ka soo baxaysa. calaamad yar qalloocda gadaal ka soo baxaysa. marka haddaan left click qabto inta calaamadaas dul saaro aan left click qabto gudaha u jiido shape-kaygu soo noqday. fiirsan marka hadday afar gees u ahaa haddana waxaa laga dhigay ma garanaysaa nooc kale ayaa laga dhigay. waxaa loo bedelay round rectangle tool ayaa loo bedelay. haye haddaan rabay sidiisii inaan ku celiyo isla xidigtaasaan qabanayaa, waan kaxaynayaa. u fiirso isla xidigta ayaan qabtay, afartiisa gees ayaan ku celiyay. marka gudaha haddaan usoo jiido dhankaan usoo jiidana geesihii afartii gees oo geesaha ayaan soo cunayaa. haddii aan xagga u jiido markaan tusaale haddaan saas u celiyey oo saas ka dhigay, marka aan rabo inaan haddii alla kuu ron yahay afartii gees soo celiyana isla xidigtaan qabanayaa, dhinaca kalean u jiidaya. marka awoodda uu leeyahay move tool waa awoodahaas ayay qayb ka tahay, inuu dhaqaajiyo iyo inaad ku bedesho oo shape-kan afartiisa gees wax ka bedesho. haye waxaan rabaa inaan lala shaqeeyo oo ma garanaysaa computerka keyboardkiisa oo shaqada la qabto. tusaale haddaan qabto control kadibna geeska aan saaro, fiiri control markaan qabto falaartan aan geeska saaro oo saa hoos usoo jeediyo, waxa fiirsaa toolka wuxuu noqonayaa tool madaxaas ka jiifa ayuu shape-kii noqonayaa. tool xaggaas ka jiifa, fiiri wuu jiifsanayaa. haye halkan marka calaamadan saxda shaygii markaad saas ka dhigatay ayaad waxaad leedahay sax, sidaas ayaan rabaa, sax ayaad leedahay, sidaadii ayaa lagaaga dhigay. control set aan dhaho. control set waxay u taagan tahay hal la qorto shortcutyada. control set waxay u taagan tahay waan ka noqday wixii aan sameeyay. tusaale undo oo kale weeye control set. waxyaalaha aad khalado ayaad kaga noqon kartaa. tusaale toolkaasi halkaa ii joogay, waxaan rabaa inaan halkan geeyo kadibna aan adhow idhaahdo meeshii igu celi. control set aan leeyahay, meeshiisaa liigu celinayaa. anaa shape-kaasi halkaa ii joogay waan kor ka keenay kadibna waxaan leeyahay meeshiisaa liigu celiyo. control set aan leeyahay, meeshiisaa liigu celiyo kaa. marka shortcutka la qoro. shortcutka move tool waa v. tusaale anoo jooga rectangle anoo jooga haddaan v keyboardka v taabto, fiirso halkaa u fiirso, halkaas iska calaamadinaya. halkanan jooga hadda haddaan v aan taabto keyboardka haddaan v taabto waka halkaas ayaa calaamadinaysa. haye aan ku noqdo rectangle aan v taabto marka halkaa u fiirso godka v aan taabto wakaas waa computerka waxaan taabanayaa v. marka shortcutkiisa hala qoro insha Allah taala. move tool shaqooyin badan oo ma garanaysaa dhaqaajintaasa iyo wax ka bedelkaasa ayuu shaqo ku leeyahay. waana shayga ugu badan oo qofku uu adeegsado markuu maartay design sameynayo ama maartay oo sawir edit garanayo, shayga ugu badan oo inta badan adeegsado weeye. marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa in toolkaasna la fahmay ayaan rajeynaya.